إسرائيل sida rasmiga Soomaaliland ugu aqoonsatay dal dhamaadkii gugi galbeed ee 2025 waxa qalinka ku duugaya heshiis ay kamid yihiin kuwa taabanaya amniga gobolka aan deganin ee Geeska Afrika saameyn culusna ku sii reebaya dhacdooyinka isbedelaya ee xere adag oo dhanka taagan maalmo ka hor heshiisyadan waxa soo taraya xogaan la xiriira iskaashiga dhinaca ammaanka sirdoonka iyo diblomaasiyadda ee u dhaxeeya Tel Aviv iyo Hargeysa waxaan hadda banaanka u soo baxay xogo waaweyn oo tilmaamaya sida Soomaaliland ay u dhaxgashay loolanada caalamiga ee ka taagan gobolka bariga dhexe tabintan aynu ku eegaynaa Soomaaliland sidee ay uga dabaalan kartaa maxay ka faa'iideysaa ku milanka dhacdooyin waaweyn oo ah kuwa ka socda mandaqada bariga dhexe adeega Wire Nations waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga Yurub ama Canada aad ehelkaaga Afrika ku sugan si toos ah lacag ugu diri karto qiimo ku qanciya iyo degdeg siimo kala soo deg hadda Play Store ama App Store Wire Nations adeeg loo bogay lana mahadiyay labada warbaahin ee kala tahay Telegraph oo laga leeyahay Ingiriiska iyo CNN-ka oo Mareykanka ahi waxay soo gudbiyeen dhawaan wacaalo ku saabsan in Soomaaliland iyo Israel ay si toos ah uga gudbeen xiriirkii diblomaasiyadda ku dhisnaa una hayaabeen dhinaca difaaca iyo galalka xasaasiga ee sida tooska u taabanaya badda cas gacanka cadmeed iyo gobolka aan deganaanshaha siyaasadeed iyo kan amni midna haysan ee Geeska Afrika oo si fudud ugu xadfan dhacdooyinka ka dhacaya mandaqada bariga dhexe maxay faa'iideysaa Soomaaliland maxaa ka dhalanaya heshiisyada cusub Israel kaalmada military iyo tababarka ay siinayso ciidanka Soomaaliland booqashadani toddobaadyo ka hor wargeyska dalka Ingiriiska ka soo baxay ee Telegraph waxa uu daabacay Soomaaliland ay gashay heshiis dhinaca difaaca oo ay la wadaagayso dhinaca Israel kaasoo bilowgiiba lagu furay in konton in ka badan oo saraakiisha ciidanka Soomaaliland la qaaday oo lagu tababaray gudaha Israel iyadoo oo la baray adeegsiga diyaaradaha drone-ta istaraatiijiyadaha dagaalka iyo ka hortagida khataraha amni tan waxa lagu fasiray bilowga geedi socod ay Soomaaliland doonayso inay ku dhisto awoodeeda ciidan iyadoo oo quldareynaysa inay gaarto hadafka madambayso oo ah isku filaansho dhinaca ammaanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan hadlay waxa uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya aysan gacmaha ka laaban doonin waxa uu ku tilmaamay duulaanka Israel ay ku soo qaaday Soomaaliland oo sheegay inay qayb ka mid ah Soomaaliya ilowradii dhinaca ammaanka ee gobolka ayaa u sheegay in Soomaaliland ay baadi goobayso haatan helitaanka raxan diyaarado drone oo isugu jira hub sahana weerar fulin kara taasoo haddii ay hesho ka dhignaanayso bedel weyn oo ku imaanaya loolanka awoodda ee Soomaalida ilaa Geeska Afrika iyadoo Hargeysa ka mid noqon karta dhinacyada ku hubaysan diyaaradaha bilaaduuliyaha in diyaaradaha iswada ee Israel sanacada ay soo saarto ay siinayso Soomaaliland iyo in kale wali dood ayaa ka jirta iyo hubantilaan balse dadka ammaanka ka shaqeeya ayaa isku raacsan helitaanka diyaaradahan ee Soomaaliland ay noqonayso dhacdo weyn oo ku cusub amniga Soomaaliya qaabaysanka wax badan ka bedelaya isla markaana toos u taabanaya loolanada gudaha ka furan tan oo xiiso gooni u leh darafyada loolamaya sida ay warbaahinta UK sheegtay tababarada labada dhinac dhex maray waxa uu mid qarsoodi oo aan faahfaahin laga bixin waxa la isku raacsan yahay in tababarku uusan ka dhicin gudaha Soomaaliya ee dufcooyinka dhinaca Soomaaliland la geeyay gudaha Israel iyo aaga kale oo ka baxsan labada dhinacba waxa sidoo kale la ogaaday in khubaro dhinaca ammaanka oo ka socotay Israel ay booqdeen Soomaaliland toddobaadkii la soo dhaafay ilaa waqtigii maalmarinta aqoonsiga Tel Aviv ay siisay Soomaaliland waxayna la kulmeen saraakiisha hay'adaha ammaanka oo ay la wadaageen habraacyo dhinaca ammaanka waxay booqdeen magaalooyin ka baxsan Hargeysa tan oo ka dhigan iskaashiga labada dhinac ee hadda la saxayo fulintiisa hore loo soo qabtay dhacduna ay isla diyaariyeen Israel iyo Turkiga Soomaaliya garoon dagaal labada dhinac ee Erdogan iyo Benjamin Netanyahu waxay si weyn ugu loolamayaan saameynta colaadaha ka furan bariga dhexe Turkiga ayaana haysta heshiis waaweyn oo dhinaca Soomaaliya waxaana Hargeysa ay aad uga cabatay tallaabooyinka Ankara ay sanadkeeda wanaagsaneyn Turkiga waxa uu qayb lixaad ka qaadanaya dalalka sida weyn u diidan faragelinta iyo tallaabada Israel ee taabanaysa madax banaanida Soomaaliya iyo aqoonsiga Soomaaliland taasoo ay Ankara ku sheegtay inay tahay khad cas iyo amniga biyaha caalamiga gaar ahaan badda cas oo lagu xadgudbayo heshiisyada cusub ee Tel Aviv ay la galeysay dhinaca Hargeysa waxay u aragtaa Soomaaliland tallaabo isku dheelitiraysa miisaanka gobolka kana dhigaysa inay yeelato awood la mid ah tan dawladda federaalka oo iyadu si joogto ah hadda u helaysa taageero ciidan oo ka imaanaysa dawladda Turkiga taasoo danaheeda waqti xaadirkan ka fushanaysa Soomaaliya dhamaadkii bishii May ee dhaaftay Cabdiraxmaan Cira ayaa fagaara ku yaala Hargeysa ka sheegay in maamulkiisu aanu ahayn mid kaligiisa oo aan taageero haysan bal ay haystaan garab ay maanta ku tiirsan taasoo sida muuqata uu la jeedo Israel iyo xulafo kale oo Soomaaliland isku halaynayso Soomaaliland iyo ka qaybgalkeeda xiisadaha badda cas ilaa dagaalka bariga dhexe isriixa iyo haddanka loogu jiro in la helo marinada caalamiga ayaa kordhayay wixii ka dambeeyay subaxnimadii 7 Oktoobar
2023 amintaas oo Tel Aviv la kulantay dharbaaxadii ugu xoogganeed ee ay qaadeen dagaalyahanada xornimo dururka ee Falastiin sida ay daabacday xarunta daraasaadka amniga iyo siyaasadda ee Tel Aviv isfidinta badda cas ee xukunka Tel Aviv ayaa sal u ah sida ay uga gaashaamo lahayn mustaqbalka dhow halista uga imaanaysa kooxaha hubeysan ee diidan jiritaankeeda sida ku cad istaraatiijiyadda Somaliland iyo Eritrea ayaa meelaha ugu muhiimsan ee ay xogtana calaamadisay kuna talisay in laga hirgeliyo iskaashiyo dhinaca ammaanka walow Hargeysa ay diideen ee Berbera ka bixisay saldhig military oo Israa'iil ah haddana warbaahinta diidan imaanshaha Israa'iil halkan ayaa si xooggan u tarmiyay iyadoo la xiganaya madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya laakiin wali lama hayo xaq barxla shaki mal in Somaliland hadda xiisadaha dunida ka dhex socda ay si weyn u dhex gashay kulka daran ee badda cas iyo gacanka cadmeed oo labadooduba kaabiga ku haya xeebaha Somaliland ayaa meelaha ugu muhiimsan ee go'aano waaweyn ay taabanayaan waqtigan dhinacyadu gaareen laakiin sida ay Hargeysa uga dabaalan karto wali isweydiima ayaa ka jira sida ay daabacday warbaahinta CNN oo Mareykanka laga leeyahay xiganaysan saraakiil sirdoon oo Washington Israa'iil waxay qaaday tallaabadii koobaad oo ay ku muujinayso in Somaliland tahay goob ay kaga qayb qaadan karta dagaalka bariga dhexe ka ogan kadib markii ay ka soo muuqatay Somaliland liiska wadamo ay Israa'iil ka abaabushay dagaalkii 40 maalmood socday ee lagu qaaday dalka Iran warbixintu waxay sheegaysaa in Somaliland Iraq Azerbaijan iyo Imaaraadka Carabtuba ay ahaayeen goobaha Israa'iil ay ka soo cayaar gudi jirtay kana ay qaadi jirtay dagaalkii ballaarnaa ee lala galay Iran kaas oo had duulaankii ugu xoogganaa ee 10 sano ee la soo dhaafay ka dhacay gobolka bariga dhexe xogta la soo bandhigay waxay tilmaamaysaa in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay adeegsan jireen garoomada Somaliland gaar ahaan garoonka magaalada Berbera halkaas oo ay u sii dhaafi jireen bariga dhexe iyagoo duulaan ku ah jamhuuriyadda Iran iyo goobihii kale ee dagaalku ka socday ilaa hadda dhanka Somaliland ma sheegin faahfaahin dheeraad ah mana beenin khubarada dagaalku waxay sheegeen in isticmaalka goobo ka mid ah Somaliland ay ka dhigan tahay in Israa'iil ay u fududeysay doc ka wareemida Iran iyo xulafadeeda daadsan gobolka waxaana jiha cusub oo ay heshay iyo goob loo arkay inay tahay istaraatiiji muhiim ah oo awood xooggan u siinaya Israa'iil qaayada weerar istaraatiijiga oo ay ku bartilmaameedsan karto dhammaan xulafada Iran ay taageerto Israa'iil doonisteeda Berbera maxay u baadi goobaysaa halkan Berbera waa marin muhiim ah kaabiga badda cas ilaa gacanka cadmeed ay muddo dheer u ahayd goob udub dhexaad u ahayd quwadihii dunida soo maray xilli waxa ka talinaya Cusmaaniyiinta Turkiga oo magaaladan ka taagay dhismayaal ilaa hadda raadkoodu halkan ka muuqdo mar kalena Ingiriiska ayaa u adeegsan jiray inuu ka ilaashado danihiisa magaalada Cadan iyo gaadiidka u gooshaya dhinaca gacanka Suez oo xilligaas xariga laga jaray xilligii dagaalkii qababaana wuxuu isku bedelay oo halkan u kala wareegay wadihii dunida ee Soofiyeedka iyo Mareykanka oo mid walba uu dawladii kacaanka kula galay heshiis loogu ogolaanay inuu saldhig military uu ka sameystay magaalada Berbera garoon diyaaradaha culus ka duuli karaan ayaa ku yaala oo military Imaaraadka Carabta ayaana dhawaan dib u habeyn ku sameysay inka Somaliland ay diidan tahay in halkan Israa'iil ka sameeyay saldhig military haddana mid la hubo waa in ay Mareykanku halkan xarumo military oo rasmi ku leeyihiin dib u dhisna u ka socdo yoolkuna waa in ciidanka Mareykanka ee ku sugan gobolka loo kala qaybiyo Boosaaso Kismaayo iyo Berbera tan oo qayb ka ah istaraatiijiyadda amniga qaranka ee aqalka cad oo si cad u muujinaysa in Berbera ay muhiim tahay Somaliland muu diyaarsan tahay falcelinta ka dhalan karta hirdanka awoodaha caalamiga iyo galalka ay baalfurtay aqoonsigii koobaad ee Somaliland 35 sano kadib ay ka heshay Israa'iil waxa uu noqday mid salka la galay loolanka dunida xilligan ka taagan gaar ahaan kan bariga dhexe oo galkiisu uu yahay midka ugu xasaasan ee dunida yaala sida ka muuqata warbixino xubno CIA ay u dusiyeen TV-ga CNN Mareykanka Somaliland waxay ku biirtay dalal dhowr oo Israa'iil ka taageeray dagaalka bariga dhexe sida Azerbaijan Imaaraadka iyo Iraq kuwaas oo la kulmay weerar ka yimid dhinaca Iran Somaliland ma haysato awood dhinaca cirka ah waxay daris la tahay Yemen oo ay joogaan kooxda Xuutiga oo si cad ugu hanjabaysa beegsiga xarumo kasta oo Israa'iil ku yeelato aagaarkooda gaar ahaan kaabiga ku haya ee Berbera waana tan keenaysa in la isweydiiyo waxa ay kaga jawaabi kartaa Hargeysa haddii ay la kulanto duulaan kaga yimaada dhinaca Israa'iil dirirta kula jirto haddana kaabiga ee Cadan jooga xogta qaar waxay tibaaxaysaa in Israa'iil Somaliland ay durba geysay xirmooyin ka mid ah nidaamyada difaaca hawada ah kaas oo mid horumarsan ma sheegin Hargeysa laakiin warbaahinta Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa xaqiijinaya in qaybo ka mid ah nidaamyada difaaca la geeyay dhanka Somaliland waxay tani muujinaysaa in laga gaashaamanayo in Somaliland ay la kulanto weerar kaga yimaada Iran ama xulafadeeda badda cas gaar ahaan kooxda Xuutiga ee ku sugan Yemen oo soo eegaysa xeebaha Somaliland kal horena ku hanjabtay inay duulaan ka qaadi doonaan meel kasta oo laga soo weeraro oo ku yaala dariskooda tan waxay muujinaysaa Somaliland dhexda ka taagan tahay isdooyin waaweyn oo dhinaca ammaanka iyo siyaasadda ah sida ay uga dabaalatana ay noqonayso waxa ugu weyn ee la eegayo madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro ayaa si weyn u difaacay xiriirka ay la sameysteen Israa'iil
waxaana uu sheegay inay tahay albaabkii ugu horreeyay ee Somaliland 35 sano oo ay madax bannaan sheeganaysaa ay tahay cidda u soo joogsatay ee doodeeda aqbashay waxaana uu sheegay in isaga filan yihiin waxa ugu yeeray kooxo cadow oo ka soo horjeeda jiritaanka Somaliland midaan shaki lahayn waa in Soomaaliya iyo dawladda federaaliga ee Soomaaliya xukunka ay hogaaminayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Somaliland si weyn isu wajahayeen bilooyinkii ugu dambeeyay dhinac kastana waxa uu ku mashquulsan yahay sidoo xulafo u soo kaxaysan lahaa oo dhinac kale uga adkaan lahaa laakiin isweydiintu waxay tahay yaa laga adkaan doonaa ku soo dhawow Daarul Asnaan Dental Clinic xarunta daryeelka ilkaha oo tayo sare leh war farxad leh adeegyada casriga oo ay ka mid tahay beerista ilkaha ayaa hadda diyaar ah Hindiya inaad aad uma baahnid Garowe iyo Boosaaso aad ka heli kartaa ilkaha maqan Daarul Asnaan Dental ayaa ku haya hal waar oo caafimaad leh